أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك وكرمك يا لطيف. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. إن الله إلهي فالق الحب xabadda xubuubka mid dilaaciyo weeye si uu uga soo bixiyo nabaad iyo wannawaa laftimireedka. yukhriju ilaahay waa soo saaraa alxaya kan nool buu ilaahay wuxuu ka soo bixiyaa min almayiti kan dhintay xaggiisa. wa mukhriju lmeyti midka dhintay mid soo bixinaya weeye ilaahay min alxayi kan nool xaggiisana ka soo saaraya. daalikum kaas faaliqa iyo mukhrijkaba ihi allaahu ilaahay weeye ee fa annaa sidaabaa tu'fakuuna laydinkaga leexinayaa rumayntii. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi: faaliqu lisbaaxi wajacala alleyla sakana. faaliqu lisbaaxi huwa ilaahay faaliqu lisbaaxi iftiinka ilaaha dhambala weeye. wajacala wuxuuna ka yeelay ilaahay alleyla hameenka sakanan maxalla sukuunin xasillooni maxalkeedu ilaahay ka yeelay. washamsa qoraxdana wuxuu ka yeelay ilaahay iyo walqamara dayaxa xusbaanan xisaab waqtiga lagu xisaabto. daalika arrinkaasina taqdiiru lcasiizi ilaaha qaalibka oo milkigiisa u qaalibka qadaridiisa weeye allihii alcaliimi khalqigiisa ogaa. wahuwa ilaahay aladii allihii weeye jacala yeelay lakum idinka idin yeelay annujuuma xidigaha litahtaduu si aad ugu hanuuntaan bihaa xidigihii fii dulumaati lbari biriga meesha oon badda ahayn iyo walbaxri badda mugdiyaashooda dhexdooda xaal aad tihiin si aad ugu hanuuntaan xidigaha. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi: qad xaqiiqa niman fasalnaa waxaanu caddaynay alaayaati aayadaha liqowmin qoom qoomkaasoo yaclamuuna garanaya oo ku fakaraya oo fiirfiirinaya markaasna ilaahay waxdaaniyadiisa u daliishanaya. wahuwa ilaahay aladii allihii weeye ansha'akum idinka abuuray min nafsin naf xaggeeda uu idinka abuuray naftaasoo waaxidatin keligeed ah waa nebiyullaahi aadam xaggiisa. famustaqarun makaanu sugnaansho oo riximka hooyo lagu sugnaado yaa xaggiinna ahaaday minkum. iyo wamustawdacun makaanu wadaac dhigid oo ardada xaggeeda ahoo dhulka dhexdiisa laydin gelinayo. qad fasalnaa waan caddaynay alaayaati aayadaha liqowmin qowm baan u caddaynay buu yidhi ilaahay qowmkaasoo yafqahuuna fahmayaan. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi: wahuwa ilaahay aladii allihii weeye anzala ka soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maan biyo. faakhrajnaa waxaan ku soo bixinnay buu yidhi ilaahay bihi biyihii nabaata kulli shayin shay kasta nabaadkiisa dhalatadiisa soo dhalanaysa. faakhrajnaa markaasaan waxaan ka soo bixinnay minhu nabaadkii xaggiisa khadiran mid cagaaran kaas khadirkaasoo nukhriju aan ka soo bixinayno minhu kii cagaaray xaggiisa xabban xubuub xabbigaasoo mutaraakiban iskorsan oo kala sarreeya bacduhu fowqa bacdin. wa min annakli timirtii xaggeedana waxaa ahaaday min dalcihaa dalci nakli timirta fiiddeeda xaggeeda waxaa ahaaday qinwaanun laamo laamahaasoo daaniyatun dhow oo isu dhodhow. wajannaatin beerana waan ku soo bixinnay faakhrajnaa minhu khadiran nukhriju minhu xabban mutaraakiban. wajannaatinna waan soo saarnay buu yidhi ilaahay beerahaasoo min acnaabin cinabya ah iyo wazaytuuna zaytuun iyo warumaana rumaanka mushtabihan xaaluu yahay mid isu eg oo calayntiisu isu eg tahay wagayra mutashaabihin mid isu eg qayrkii xaaluu yahay oon mirtiisu isu ekayn. unduruu fiiriya ilaa amarihi mirihiisa fiiriya idaa waqtigii ahmara uu miro dhalo
وينعه وإلى ينعه مرها بسيل كودنا فيريا إذا أين عتوي إن في ذلكم كاسد حديث وحاكو سقان الآيات آيادا كسقان آيادا سل قوم سقنا قوم كسو يؤمنون حق الرمينية قال تعالى إلهي وحيري وجعلوا حيويالا لله إلهي شركاء هو إله نمدا إلا وداجيني قالت ويالا إلهي الجن بيويالا شركاء ذاك بدل وخلقهم والحال قد خلقهم يقن إلهي وابوري مخلوق إلهي قارك شيئا يعني إله نمو وخرقوا وحيوا أبورين له إلهي أي اختلقوا بنين أو يقبين أبورتين بنين ويلل إيا وبناتين قبله بغير علم الآن يينو أبورتين انتاس سبحانه إلهي لنزه الديسي وتعالى وحكسر يا عما شيء حق شيء قاسوا يصفون يكتل ماميان قالضوا وإلهي وكنزهن يهي بنين يا بناتين قال تعالى إلهي وحير بديع السماوات هو إلهي بديع السماوات مبدع السماوات سموين كم بالله بيوية سقعدوا سرقوستيان لأرق والأرض دلك الناس ديبوا مرك يكونوا وهان له إلهي ولد والحال لم تكن أيسن وهان له إلهي صاحبة زوج وخلق وحونا أبور إلهي كل شيء كستا وهو إلهي عليم بدقوي بكل شيء كستا ذلكم كاسي الله إلهي ويربكم لهنا لا إله من حق لك عابده وجود كدحدي سماها إلا هو سقماهنه خالق كل شيء كستبع الله أبو ريوي فاعبدوه أسقون عابدا وهو إلهينا وكيل له مد وكيل كاوي على كل شيء كستا وحفظنا يه وحكفكنا ينال لأرك لا تدركه إلهي مهل إليان الأبصار وأرقياشه والحال هو إلهينا يدركه هليلي الأبصار أرقياشه وهو إلهي اللطيف إله الدمرية ويدومه سال الخبير ويحوشه قال تعالى إلهي وحير قد جاءكم قد حقيقة ما جاءكم وحايدين يمد بصائر حجوي بايدين يمد أي حجج بصائر تاسو من ربكم اللي حق سكاهاتي فمن غفكي أبصر أرك حقه أو رمي يمركاس فلنفسه فإبصاره إبصار كيس أركدي سفايدة دو لنفسه نفسه دي سيسقناتي ومن غفكي عمية كاين دبالة أو كأرك حقي أو أن رمينين اللمة فعليها فوبال ضلاله لمديسة ألا جيدو عليها دشيدو وهذا نفتيسة كركيدة وما أنا نقول ما هي بحفيد من حفظنا عليكم كركينا أي النبي كله ليري صلى الله عليه وسلم قال تعالى إلهي وحيري وكذلك سدا صوكله يا نصرف عديننا الآيات آياتها سيدتك وعقو عبرقاتان هي وليقولوا سيقال ذا أنهنونك وغرين يرهدان درست واتسو أخرصي كتبه دتك هره مركزات كلا تمدارهن كان إيا ولنبينه سيانوغو عضينه لقوم قوم كاسو يعلمون قرنيان قال تعالى إلهي وحي مخادما للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع راع ما الذي كي أوحي الله وحيودي إليك أدق أنت كامل ربك الله حق سنة الله وحيودي لا إله من حق عابداه كوجود كدحدي سماها إلا هو إلهي موياني وأعرض كنجس عن المشركين كو إلهي شريك يلي حقودا قال تعالى إلهي وحير ولو شاء الله إلهي يدودونه ما أشركوا ما يسنن شريك يلن وما جعلناك كمان نيل النبي محمد حفيظا مدحفظنا عليهم يكركودا وما أنت أدقنا بتهد بوكيل من وكيلك عليهم يقد شودا ووحي عملوا إلي مادان يقع أيام ماركت الله حسابيا قال تعالى إلهي وحير ولا تصبوا حعايننا ذيك مؤمنين تاهي الذين سنمياشي يدعون قالت ويعابدين من دون الله إلهي كسكي أو فيصبوا ويعايان مركاسا قالت والله إلهي عدوا لأجل عدوان ده عدوان درتيس بغير علم لأن يعايان كذلك سدا صوكله ينزينا وقرحنا يبير إلهي لكل أمة كاستعملهم عمل كودا ثم مركز كقدلنا إلى ربهم الله انتكاها مرجعهم وكانوا لا بشدد وهاتي فينبئهم مركز ويقوح له وخبريا بما شيشا كانوا يعملون كو عمل فلا قال تعالى إلهي وحير وأقسموا وحيكون دارتين
billaahi ilaahay inay ugu dhaarteen jahda aymaanihim dhaariyaashooda midii ugu kakaneed waxay ugu dhaarteen lain jaa'athum haddii ay u timaado iyagii aayatun aayad layu'minunna inay rumaynayaan bihaa aayadii qul waxaad tidhahdaa sayidka moxamed ahow inama alaayaatu aayaduhu cinda allaahi ilaahay agtiisa ay ahaadeen wamaa yushcirkum maxaa idin ogeysiinaya annahaa aayadihii idaa jaa'at hadday timaado laa yu'minuuna inaysan rumaynaynin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wanuqallibu waan gedinaynaa afidatahum quluubtooda iyo wa absaarahum aragyaashooda kamaa lam yu'minuu bihi sidii iyagoo aan rumaynin kalaamkii ilaahay awala maratin markii hore wanadaruhum iyagiina waan ka tegaynaa fii duqyaanihim xadgudubkoodii iyo baadidoodii dhexdeedaan uga tegaynaa yacmahuuna xalayyihiin kuwa wareersan aayadihii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga soo hadlay laba arrimood amru tawxiid wa amru nubuwa towxiidka ilaahay kelinimadiisa iyo nabigeenna sala allahu calayhi wasalama nebinimadiisa halkaana adilo fara badan oo tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala wujuudkiisa inuu mawjuud yahay tusinaysa cilmiga ilaahay inuu muxiid iyo wax walbaba uu koobay qudrada ilaahay ee baahirada xikmadda ilaahay waxyaabahaasoo dhan adilo tusinaysa yaa halkan naloo kaga sheegayaa arrintaasina waxa weeye tanbiihan calaa ana almaqsuuda alasliya inamaa huwa macrifatullaahi maqsuudka asliga ee insaanka laga rabaahay waxa weeye ilaahiis inuu aqoonsado subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay yahay waaxidun fii daatihi wa fii sifaatihi wa fii afcaalihi لما ذكر مركو إلهي حصي تعالى سرية أمر التوحيد توحيد كأمر كيسة وهو أردفه أمر توحيد كيو فنقلي بتغرير أمر النبوة نبي نماذا أمر كذا لسقيتان كذا ذكر وحو إلهي كحصي هنا هل كان 10 كان الأدلة الدليل الذي الدالة تسينيسي على وجود الخالق خالقه يليتان كيسة وكمال علمه علم جيسا كامل نغشديسا وقدرته كمال قدرته وحكمته يا إلهي حكمة ديسا سبحانه وتعالى تنبيها براروجين ترتيد أدلة أن لكوكو شيئا ليسكو براروجين على أن المقصود كان لو قصد الأصلية يصل كل نسبيا إنما هو إنه معرفة الله إلهي أغنسي صلى الله عليه وسلم بذاته وصفاته وأفعاله وهي مركا مناسبة يا كان حيث لبدا 10 قال تعالى إلهي وحير إن الله فالق الحب والنوى ولي وحن كجرناه الاحتجاج على المشركين بالأدلة المتنوعة وحكم إذا مركا عجائب الصنع ولطائف التدبير صنع إلهي سميي مصنوعات كمخلوقات كانوا إلهي سميي الدليل كواه إلهي وحدانيديس قدرديس iyo maamulka ilaahay oo caalamkan maamulo iyo ajaa'ibkiisa waxyaabaha soo dhan la rabaa in loo daliishado waxa uu soo horeeya xububka xabada xububka ah sida midal mid qamadida iyo shaciirta oo kale iyo hal xabba waxa la gelinayaa dhulka hoostiisa markaas ilaahay inta dilaaciyo iyo wuxuu ka soo saarayaa geed qoyan ya ilaahay ka soo bixinaya subhanahu wa ta'ala awoodda ilaahay halkaas ay maaragtay ay maraysaa marka allahaas inay aqoonsadaan dadku la rabaa oo ay u aqoonsadaan ilaahnimada xaqa ah taasa ugu soo horeysa in allaha ilaahay faaliqul habbi shaaqul habbi xabada xububka mid dilaaciyo weeye ilaahay si uu maaragtay uga soo bixiyo nabaad wannawa iyo laftimireedka wuxuu dilaacinaya laftimireedkeeda aan banoolayn markaasuu ilaahay caleen ka soo bixinaya cagaaran xububkuna waa sidoo kale marka waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala maamulkaasi yukhriju ilaahay waa soo bixiyaa alxaya ka nool ayuu ilaahay wuxuu ka soo bixiyaa oo matal insaanka oo kale alxaya ee noola ilaahay wuxuu ka soo bixinayaa min almayiti midka dhintay oo ah manidaasaa laga soo saarayaa qof nool ومخرج الميت midka dhintayna oo aan noolayn ilaahay wuxuu ka soo bixiyaa umanidii lafteedii ah min alxay ka nool oo ay ka soo baxayso waa tafasiirta lagu fasiro qaar ka mid ah
يخرج النبات نباتك إلهي صبح يا دلتدا الغضة عصب الطرية واسكمعنه من الحب اليابس حبوبك قللنا إلهي كسوساريا ويخرج الحب اليابس حبوبك قللنا إلهي وكسوساريا من النبات الحي النامي سود لنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما يخرج إلهي وحكسه بحياء المؤمن غفك مؤمنك من الكافر قال كي حقيس والكافر نوح إلهي كسه بحياء من المؤمن وعلى هذا فالحي والميت استعارة وحمر كاس لو سعاري استوى لغا كان معنى مقصود كيا عن المؤمن والكافر مركا تاسنا وتفسير ايضنا ايد الى ضحي وعبد الله بن عباس وكفسري ذلكم كاس فالق يا مخرج كبا او لبدا صفه اسكله الله الهي وي عد كلو يلان كرت لماركو فأنا سيدابا تؤفكون ليدن كغا إيليا وليدن كغا ليحينيا حقا مركي حجداسي سيداس عضاتي فالق الإصباح أدلدي وكميدها فالق الإصباح افتينك الله جاحوي ومقدقة كفيدة قال الضبري الشقة إلهي وحجاها عمود الصبح صبح كتير كيس عن ظلمة الليل همينك مقدقي سي وسواده مدوغي سحقي إلهي كدلعيو افتينك أول كيس صبحك أي إصباح لي هذا وجعل إلهي وحيالي الليل همينكين وكيالي سكنا أي محل سكون حسلوني دقدقاق إيو سعسعت كي وحيابها سقفك وكرا حيسته محل سكون واستراحة وي يا إلهي كدقي همينك والشمس قرحدا والقمر ضيحنا إلهي وحكدقي بحسبان حساب مصالح الضمه أو كتعلقه وأي زمن كو قرتان همينك يا مالنتا شمس دون ومالنتي قمر كنا وهمينك ذلك أرنكاسي تقدير العزيز الله غالبك وملكي سوادك قدريدي سيوي الله العليم خلقي سنوغاي مصالح دوده وسداس كن معمولي وهو ولي الذي وحاسعد إلهي أودي سي كمال كذا تسينيي وهو إلهي الذي عليه وي جعل لكم مدين كيدين يا النجوم حدقها إلهي إذن كوكا الله يستي لتهتدوا سيادوها نونتان بها حدقها في ظلمات البر بالرقاء والبحر بدا مقدياش ودى حدودا حالاتين وقتك سفر دي يلوجرو ومن نمد الله سفر أيوه أما بالرقاء هلوغو سفر أما بدا هلوغو سفر افتينك حدقها iyo jihada ay ku kala aadan yihiin oo qofku maqsuudkiisa oo maaragtay ka qiyaas qaadanayo waxyaabahaas oo dhan ayaa lagu socdaa mugdiyadaas wa inma tanna alayhim ilaahi wuxuu ku galladaystay dadka bin nujumi xidigaha liana salikil qifari bahgooyooyinka kuwa qaada waraakibil bihari badaha kuwa kora inma yahtaduna fil layli aminki waxay ugu hanuunaan لمقاصده مقاصدياشودا بها حدقها سياديك سدان وما ركتي وجهنون ماشي يسعدين أو كقرنيان مركوا النعمة وين قد فصلنا وحنو عضيني بير إلهي أي بينا الآيات آياته لقوم كاسو يعلمون قرنيان عظمة الخالق أي قرنيان سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الذي أولي سعوته وهو إلهي الذي عليه وي أنشأكم إذن كأبوري من نفس نفحقت نفتاس واحدة كليجدا هل نفع يا لذن كوضع أبوري ونفتي نبي الله آدم عليه السلام فمستقر مكان سكنان شو يا منكم إذن حقنا هذا رحم كده سكناتان ومستودع مكان وديع دقيد أي حقنا هاتي أتكو سكناتان dhulka dhexdiisa dhowr tafsiir ayaa lagu fasiraa famustaqarrun wa mustawda'un ism fa'ili ism maf'ul labadana waa laga akhriyaa qala ibn Abbas wuxuu yiri Abdullah ibn Abbas al mustaqarru fil arham bu haaday rahimyaasha dhexdooda wal mustawda'una fil aslab dhabaryaasha aabaha dhabarkiisa iyo hooyada rahimkeeda taasoo tafsiirkaas uu noqonaya أي لكم محايدين سقناده استقرار سقنان في أرحام أمهاتكم هو يمكن رحميا شودا أتكو سقناتان يواصلا بآبائكم آبياشين دبريا شودا
وقال ابن مسعود شيخ حسن وحي مستقر في الرحم ومستودع في الأرض ودولك دحديسا ليدين وداعا دغو الله تي ardadii tamuutu aad ku dhimanaysid fiiha iyada dhexdeeda oo dhulka aad ku dhimanaysid ayaa maaragtay lagu dhexgelinayaa mustawdaca waa ardada mustaqarkuna waa riximkii hooyo qad fasalna waxaan u cadaynay buu yiri ilaahay alaayati aayadihi xujooyinka hali qowmin qowm qowmkaas oo yafqahuuna fahmayaan aayadaha maqsuudkooda وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء الذي كمت هاي آيات وهو إلهي الذي الله ويه أنزل كسودجي من السماء سمد حق ماء بيو كسودجي رب فأخرجنا وحنكو صبحنا من باب الالتفات على هذا فأخرجنا من باب الالتفات من الغيب إلى التكلم فأخرجنا وحنكو صبحنا به نبات كل شيء كستا دلتديس وحصول دلنيه وأما فاكهة أما ثمار أما بقل أما حبوب أما عوس أما جيد دمان وحيكون صباحيا بيهاس إلى عركة كسود الشيء فأخرجنا مركزا وحن كسو صارنا يبير إلهي منهم من النبات نبات كي بيها كسودش يا وحن كسو صارنا هدانا خضرا مد عقارا يا أخضر يا كسو صارنا خضر كاسو نخرج وان كسو بحين به خضر كي حبا حبوب حب كاسو متراكبا كلا سرية واسكرسن أي متراكما بعضه فوق بعض كسنابل الحنضة قمديدة صبول الذي ذوك لي والشعير مسجدا ويسكن متنمنتود مرك إلهي سبحانه وتعالى سياس بها وصو صاريا ومن النخل تنون وكمد ومن النخل جيت مرات كحق سوحا هذا وخبر مقدمة من ضلعها نخلي في ديدي حقي دي وحا هذا جاري مجرور لقى بدلي ويوغو خبر كي ويكن هره كان دبر وكبدلن yahay mutadina waa ku dambeeya qinwaan laamo ayaa ahaaday laamaha suudaaniyatun dhow Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkan ku tilmaamaya timirta geedaha timirta ay aad u ajaa'ib badan weeye oo ajiib ah oo lagu tilmaamo hal shay oo la tuuro inay geedkaas oo san lahayn nooc kasta oo asaga kamid ah faa'iido loo isticmaalo إلهي بفيداس جتمرات كوحو كصاب حنا يا لاما يسود أو رعوبة أو يسار سارن أو مدول با مراكور هران تاعي يسود دو دانية هي دا يسود دو أما وحي دو ده يقف كجرانية هو رعوبتي وجنات وأخرجنا وحن كلو كصاب حنا بيه جنات بيره ريكو عطفن تاعي فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء نبات داسيك عطفنتاي وجنات بيرنا وانصابح النبي إلهي بيها كصابح النبي بيرها من عناب عنبياله والزيتون الزيتون والرمان الرمان مشتبها حال سوقيهي منظرها جيدها صدن مغال كود وسوقيهي وغير متشابه مد سوق غير كحالو يهي ثمرها مرهيد نعتي سبب يا مركز كدكتت مركز جدهان ويسو علين اجيهن ويسو مقال اجيهن لكن مرهود وكلا ددن دويهن إلهي باكل الدوي سبحانه وتعالى أرنتاس مركز وحكوسوغان دليل قاطع على الصانع المختار العليم القدير اللي هي سيدان مولي إنه موجود يهي عيد إله لماذا لو ذاك أنا أي سنشرين انظروا في ريا بوير إلهي سبحانه وتعالى انظروا في ريا الضضو إلى ثمره جيت كاسمره سفيرية إذا وقت جي أثمر أو مردله وينعه وإلى ينعه مره بسيل كودنا في ريا مركاي بسلادان إلا فيريو مركاو دلنا iyo markuu bislaado intaba soo dhalashadooda cajaa'ib ay leedahay midabyadooda iyo maaragtay qadarkooda wax weyn iyo wax yar uduga waa ku kala tagsan yihiin markii ay maaragtay bislaadaanna mid qaraar iyo mid dhanaan iyo mid macaan isugu jiraan cajaa'ib weeye waa maamul ilaahay maamulay subhanahu wa ta'ala oo loo daliishanayo ilaahay kaligii inuu yahay
إن في ذلكم كاس دحديسا waxaa ku sugan oo mirahaas iyo zuruucdaas iyo waxyaabahaas kala nooc ah oo midabka iyo dhadhanka ku kala duwan abuuristooda waxaa ku sugan laayaatin aayado tusinaya ilaahay awoodiisa iyo waxdaaniyadiisa aayadahaas oo liqoomin qoom u sugnaaday qoomkaasoo yu'minuuna alla rumaynaya subxaanahu wa tacaala dadka rumaysan ilaahay waxdaaniyadiisa oo rumaysan ilaahay inuu waxa dhintay soo noolayn karo ayaa maaragtay daliilkaasi ugu sugan yahay qof qalbiga ka dhintay indhana aan haynin qalbina aan haynin asagu wax arki maayeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi adiladaas oo dhan markii naloo soo sheegay kadib wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi ilaahay jacalada mafcuulkeedii labaad wey oo soo hormaray lilaahidu shurakaa kuwa ilaahnimada la wadaagay ay ilaahay u yeeleen qoladii gaalada ahayd aljinna ayay u yeeleen shurakaadaad ka bedelaysaa jinni yay shuraka ilaahay uga yeeleen oo jinnigii adeeceen sanamow caabuda yidhi waa ka yeeleen sidaasay marka ay ilaahnimo ugu aqoonsan yihiin sida asagay awaamirtiisa qaadanayaani وخلقهم والحال بيساس ويالين قد خلقهم إلهي ويغانا أبوري وعيد كلو أبورتا إيسان جرينو جني غاني نوسن أبوري كرين سنم كي عبوديان نوسن أبوري كرين مركز سيدابي إله نمد أولا وداشينيان وجهل قمشو قدام بيدي ويمعنوه وخرقوا وحي أبورتين له إلهي نو أبورتين ويسكو سودو دين بنين ويلال يو بنات قبله بغير علم غيرك أي مارك تيسداس كو سميين وإلهي بيوحيون نسبيين مارك تويلال يا قبله عزير وابن الله يجرهدين وويلش حقه هذا ملائكتنا وإلهي قبله سيجرهدين marka wiilal iyo gabdho yay Allah u soo nisbeeyeen oo iyagu soo abuurteen bighayri ilmin subhanahu ilaahay la nazahidiisa ilaahay ka nazahan yahay sifaadkaas xun oo gaaladu ku tilmaamayso oo ay ka mid tahay inuu awlaad leeyahay ilaahay waa ka nazahan yahay wa ta'ala wa ka sareeya ama shay xaqi shaygaas oo yasifuuna ay gaaladu tilmaamayaan badii'u samawati wal ardi هو إلهي بديع السماوات سموين كإله بالله وي يا والأرض دلك الناس ذيبوا يكونوا قوهان له إلهي ولد والحال لم تكن سنوهان له إلهي صاحبه كيف يكون له ولد وليس له زوجة معنه سداس والولد لا يكون إلا من زوجة إلهي وكن الزهن يهي وحيابها سيت الماميان عركا يدلك الله أبو ري وي انت ورد حيسا وحيكون لنا أبو ري خالق الكل وي وانا باهنا مخلوقيسا وخلق إلهي وحو أبو ري كل شيء كستا وهو إلهينا عليم مدعق وي بكل شيء كستا وما من شيء إلا هو خالقه شيء مجر إلا إلهي بأبو ري والعالم به الله أق وي ومن كان كذلك صفات كاس الله لهنا كان غنيا وهو غني عن كل شيء قال في التسهيل صاحب التسهيل وعير شيخ كتاب كان حيث والغرض ولا جدد ايضا لوغا جيدا الرد ويا على من قف دشيسا لوغو ردينيا النصب والنسبه لله الهي الولد ولد من جهتين لما جهه لوغا ردينيا احدهما متكود ان الولد لا يكون الا من جنس والده والدك جنسي سو نقضا والله تعالى إلهينا سرية متعال متكسرية ويعني لأجناس جنسياشة لأنه الله مبدعها أجناس إلها بالله وي فلا يصح أن يكون له ولد مرك ما صح يسوين ليرى ولد وليه والثاني وجه اللباض والوجود الدين إياه وحوي أن الله إلهي خلق السماوات والأرض عركا يرلك واسقع أبوري ومن كان هكذا سداس الله أهنا فهو غني عن الولد وعن كل شيء سدا درتيد مركا وافلقاد قالت ويجيسن ايان ما هانه الهي وكن الزهنيا وحيابها صودن ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كينا لو سو شيغاي يا الهي لك لنقشيسا خلقك اورستيسا او لك ليهي يا لسي خوجين يا مركانا ذلكم كاسي الله إلهي وي ربكم اللهين لا إله من حق لغو عابده وجود كدحدي سماهن إلا هو سقماهن
khaaliqu kulli shayin shay kasta allaha abuuray weeye ee facbuduuhu caabuda isaga cibaadada mudani keligii wahuwa ilaahayna calaa kulli shayin shay kasta wakiilun mid xifdinaya oo maamulaya weeye ee umuurtiinna ilaahay u soo bandhiga cibaadadiisana la imaada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa tudrikuhu ilaahay ma haleesho al absaaru aragyaashu oo ma gaari karto mana koobi karto wahuwa ilaahayna yudriku mid haleelaya weeye al absaara aragyaasha maxaa yeelay cilmigiisa ayaa wax walbaba koobaya wahuwa ilaahayna alladiifu ilaaha u dhimriya addoomihiisa weeye alkhabiiru ee og masaalixdooda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad jaa'akum waxaa idin yimid basaa'iru xujooyin ayaa idin yimid basaa'irtaasoo min rabbikum allihiin xaggiisa ka ahaatay xujada waxaa basiirada looga cabiray basiiradu waa shayga wax lagu haleelo oo wanaagga iyo xumaha lagu kala saaro marka xujaduna sidaasoo kale weeyo hanuunka iyo baadida ay kala saartaa xaq iyo baadilkana way kala saartaa xujooyinka la tilmaamayo oo noocaasa oo dadka aragga u ah oo hanuunka u ahina waa qur-aanka kariimka asaga bayaanka iyo basaa'irtuba ku jiraan faman qofkii absara arka xaqi oo markaas rumeeya falinafsihi nafsadiisu absara u arkay naftiisayna anfacaysaa waman qofkii camiya ka arag beela oo ka arag la xaqii xaggiisa oo luma facalayha facalaa nafsihi naftiisa korkeeda u camiya ku arag beelay waiyaahaa dara bilcama iyada unbaana indhala-aantu ay dhibaysaa wey wamaa ana anugu ma ihi calaykum dushiina bixafiidin mid xifdinayo idin dhowraya ma ihi ee waxaan ahay mundir saasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa xafiid ah laakiin anigu mundir baan ahay dige qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadalika sidaasoo kale yaa nusarifu u caddaynaynaa alaayaati aayadaha si ay dadku ugu cibro qaataan waliyaquuluu iyo si ay u yidhaahdaan waliyaquuludu jumladaasi jumlo hore oo go-an ayay ku cadfantaha liyactabiruu waliyaquuluu iyo si ay u yidhaahdaan mushrikiintu darasta waxaad daraasaysood soo akhrisay kutub almaadiina ummadihii tegay kutubtoodii faji'ta bihaada markaasaad kala timid kan sidaas inay yidhaahdaan oo iyaga imtixaankaasaa haysta walinubayinahu iyo si aan ugu caddayno qur-aanka liqowmin qomkaasoo yaclamuuna garanayaan inuu xaq yahay oo raacaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ittabic raac nebi muxamedow maa uuxiya waxaa loo waxyoonaya ilayka adiga intikaa min rabbika allaha xaggiisana looga waxyoonayo cibaadadaas ilaahay ku shuqlon laa ilaaha mid xaq lagu caabudayo wujuudka dhexdiisa maahan ilaa huwa ilaahay mooyaane waacrid ka jeeso can ilmushrikiina kuwa ilaahay u shariig yeelaya subxaanahu wa tacaala waxba araa'dooda ha fiirinin walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa hanuunkooda ma ashrakuu ma isnan shariik yeeleen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabo sameeyaa lamana weydiiyo wuxuu sameeyo ilaahay laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun wamaa jacalnaaka kaamana annaan yeeli nebi muxamedow sala allahu calayhi wasalam xafiidan mid xifdinaya calayhim iyaga dushooda oo dhowraya oo camal yacni iyaga ku abaalmarinaya acmaashooda iyo kaama annaan yeelina mundir ayaan kaa yeelnay mubashira wamaa anta adiguna ma tihid biwakiilin mid loo wakiishay calayhim iyaga dushooda arsaaqdooda iyo umuurtooda midna xafiid muraaqibana ma tihid wakiilna uma tihid arrintaas ee waxaa tahay mundir mubashirahe gaarsii weeye macnuhu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin aayaddan sababu nusuulkeedii can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala kufaaru quraysha waxay ku yidhaahdeen liabi aalib ima an tanhaa muxamedan wa asxaabahu can sabbi aalihatina inaad nebi moxamed ka reebtid iyo asxaabtiisa sanamyadeenna ilaahyadeenna caydooda iyo wanayli gaarista ay gaarayaan minhaa ilaahyada xaggooda wa imaa
iyo an nasubba inaan anagu cayno ilaahahu alihiisa oo nahjuuhu aan cayno labadaas mid noo kala door ay Abi Daalib ku yiraahdeen markaas aayadani soo degtay wala tasubbuha caayinina idinka muuminiinta ah alladina sanamyadiha caayinina yadcuuna ay caabudayaan gaaladu min duunillaahi alla ka sokay oo hadaad sanamyada ka caydaan fayasubbu waxay markaas caayayaan الله إلهي عدوان لأجل عدوان حد قدب درت بغير علم عدو قاسوا بغير علم علم الآنه وقون الآن عظمة إلهي إسنان وقونين درت يدي إلهي وعايين هذا سنمية ذا كعيسانه عايننا سداس إلهي كيري سبحانه وتعالى كذلك سداس أوكله ونكواس عمل كوداس حنوق قرحني ينزينا وقرحني بير إلهي لكل أمة كاستعملهم عمل كودا ثم إلى ربهم الله دينتكاهم مركز كدي مرجعهم لا بشدد وهاطي فينبئهم مركز إلهي وحوق ورميا بما شيء وكانوا يعملون كو عمل فلا وعيد شديد وي أول مرينا كادم بيسمر هدي لقير وحال ذاك قال تعالى إلهي وحير وأقسموا وحيكون دارتين كفار مكة بالله إلهينا ودارتين جهد أيمانهم دارياشو دمد وقوك كانت وحيكون دارتين لئن جاءتهم هدية يؤتمادو آية معجزة ليؤمنون إن رمين أيام بها آية قل وحاتر هذا سيدكم محمد هو إنما الآيات آياته عند الله إلهي أكتسي هذين آياتها حال كودا إلهي أكتسي هذين معنا أني أكتيدا معهن مركا آيات دينكو اختراعاتين إن دين كيناهي شرط معهن إلهي بآياتها معمولة سبحانه وتعالى ومعجزات ككينة وما يشعركم قال تعالى إلهي وحير وما محيبا يشعركم إذن أغيسين إياه أنها آيات معجزة هذه إذا جاءت هذه أتماد قوة ضلبانية لا يؤمنون إن إسنان رمينين آيات مركي أتماد لفت هذا إسنان رمينين قال تعالى إلهي وحير ونغلب ونقدنينا أفئدتهم قلوب تودا يا أبصارهم أرقياش تودا أيام وحن كحولينا بليه إلهي إيمانك حقيسة كما لم يؤمنوا سيدي أيقوا أن رمين به قرآنك أول مرة هاي مرة دي خوري مركة كوباد با أيقوا أن رمينين قفك دي إلهي هنون ولدونه هنون كيساسا إلهي كو أنفعي قفكان إلهي وسن لدونين هنوننا عيد هنوني كارتالمان كي قلبي كيسا لقا قدين إياه ونذرهم كواسان هنون سنين وانكتقينا بير إلهي يعمهون حاليهم كو ريرسن في طغيانهم حد قدب كودي يبادي دودي دحديدا طغيانك يعمهون الضنبر ولغو تعالج كران نذرهم نوالغو تعالج كران نذرهم يجي وحانوغا تغينا في طغيانهم ينوغا تغينا يعمهون حاليهم كو وريرسن ونذرهم يجي كتغينا يعمهون حاليهم كو وريرسن في طغيانهم حد قدب كودي دحديس marka labada ficilba uu ku tacalluqi karaa wallahu subhanahu wa ta'ala